بسم الله الرحمن الرحيم Soomaalidu waxay tiraahdaa nin carooday laga badiyay waana runta qofka caradu way ka tambadisaa oo aqligiisa dhan ay afduubtaa kadibna qofka careysan wuxuu sheegay wuxuu kalama ogo dabcan runtii caro walbo sabab dhalisa ayaa jirta sida Soomaalida ay tiraahdo dheriga uumiga kuleel baa ka keenay laakiin waxa aad u daran carada aan laga soo noqonaynin dhibaatada maanta haysatana ka Soomaali ahaan waa caro aan laga soo noqon taasoo mar walba u horseeda colaad aan laga heshiin marka su'aasha da'da weyn waxay tahay sidee baan ugu talaali karnaa caruurteena jiilka cusub ee hadda soo baxaya dabeecadaha naga qaldan oo sida Dulqaad Yarida tanaasul la'aanta fudeydka iyo kaca ay caadifada hogaaminayso kuwaasoo caqabad weyn ku ah horumarka mujtamaca Soomaaliyeed hawshaasna waa hawl oo Soomaali weyn oo dhan ay u taalo gaar ahaanna dhalinyarada kuwa mar dhow guursaday oo caruurta yaryar leh iyo kuwa hadda guursanayaba runtii xalka koowaad culumada ku takhasusa cilmu nafsiga caruurta waxay leeyihiin hadiyada ugu weyn ay waalidiinta caruurtooda siin karaan waa inay arkaan hooy iyo aabbo isjecel tusaale ahaan nabigeena Allahumma salli wa sallim alayhi wuxuu yiri cunto aad afka u geliso xaaskaaga waxay u degtaa sadaqo khubaradu waxay leeyihiin oo caruurta markay caruurta arkaan aabbo oo cunno afka u gelinayo hooyadiisa ama hooyadeeda waxay ka qaadayaan farxad reen iyo caruurtaasna markay weynaadaan waxay noqonayaan caruur dhinaca fiican wax ka arka oo aan mala xumeyn oo karti leh markii aad fiirsana runtii sunnadaas uu nabigeena inoo sheegay wax ku dhaqmo waa yar yahay ummadda islaamka bal mar isku day adaa yaabi doonta dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku day ayaa jirto waxay ka yaabeen caruurtoodii sida ay u faraxsanaayeen halka labaad in caruurta ayagoo yaryar la baro farsamada gacanta waxa la xaqiijiyay in caruurta markay yaryar yihiin hadii la baro xirfadaha gacanta ama farshaxanka inay u kordhinayso dulqaad iyo samir maxaa yeelay qofka intuu wax ka farsameynayo intuu wuxuu rabay ka gaarayo waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad markii aad fiiriso tusaale ahaan dugsiyada hoose dhexe ee reer galbeedka waa khasab inuu qofku barto farshaxanka ama farsamada gacanta ahmiyad weyn ayayna siiyaan maxaa yeelay khubarada oo caruurta waxay leeyihiin waxay caruurta u kordhinaysaa xiriirka ka dhaxeeya maskaxda iyo qalbiga iyo gacanta ayaga waxay u yaqaaniin 3H's yani head heart and hand yani waxay kordhinaysaa xiriirka ka dhaxeeya saddexdaas qaybood oo jirka bini'aadanka ugu muhiimsan runtii Soomaali ahaan markaa fiiriso iskuuladeena aad ahmiyad weyn ma siiyaan farshaxanka ama farsamo gacmeedka oo caruurta galaasyada lagu baro ka mujtamac ahaan runtii farshaxanka ama farsamada gacanta waa ka faanaa taasna waa cawaaqib xumo yani waxa jirtay ilaahay u naxariista abwaan maxamed gacal xayo oo nin indhoole ah ilaahay u naxariista wuxuu ka digay gabigiisa farshaxan loo yaqiinay cawaaqib xumada ay leedahay farsamo la'aanta qaar ka mid ah gabigiisa waxay tahay farsamada gacmuhu soo waxaan laga fursayn ma aha Allah faxanay Soomaaliyay yaa idin fahamsiiyo wax adduunka lagu faano yaad wali ka faantaane marka waa muhiim inay hay'adaha waxbarashada wasaaradda warshadaha wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradaha oo dhan iyo inay si wadareed yani u awaabulaan barnaamij lagu barayo caruurteena farsamada gacanta taasoo horumar weyn u keeni doonto wadanka haduu Ilaahay yiraahdo maxalka saddexaad waxaa jirto in caruurta yani mar walba aan argoosiga aan lagu dhiirigelin macna caruurta in la baro cafinta iyo samirka markii aad fiiriso waalidiinta Soomaaliyeed badanaaba waxay ku dhiirigeliyaan caruurtoodii in markii yani khalad laga soo galay inay argoostaan taasoo ay moodaan in caruurta ay barayso geesinimada ama caruurta ay geesi ama haliyay ku noqonayaan taasna waa khalad maxaa yeelay nabigeena wuxuu yiri geesiga ma aha midka seef la boodka ah oo mar walba lagdamo geesiga waa ninka caradiisa xakameeya oo markuu careysan yahay caradiisa xakameeya
qur'aanka kariimka ah wuu ogol yahay macnaa in qofku uu xaqiisa soo dhacsado argoosto laakiin darajada koowaad wuxuu siiyaa dadka samra oo cafiya يعني مر والبا يعني ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور يعني وحو درجة كواتسيا دتك عفية أما سمراء runtiina markaa fiiriso siyaasadda Soomaaliyeed sababaha ay u cakiran tahay waxay ka mid tahay badankeena ayaa anagoo yaryar waxaana lagu soo koriyey argoostiga iyo inaan wax mar walba argudsato marka taasna waxay dhalisay inay siyaasaddeena noqoto aan wax qalana midiyahana kala qarsano yani siyaasadana sideedaba caro kuma fiicno siyaasadda tusaale ahaan markii aad fiiriso markaa careysan tahay siyaasadda go'aamo xunxun ayaa gaaraysa tusaale ahaan markaa fiiriso dalka Ingiriiska aan joogno sanadkii hore doorashada waxay galeen ayagoo careysan markaasaa ay Yurub oo dhan ka baxeen oo ay galeen furiinkii ugu qaalisnaa dalaaqi ugu qaalisanaa ilaa ay hadda dalaaqiya socdo xaalkiisa markii aad fiiriso dalka Mareykankana sanadkii hore ayagana doorasho ayagoo careysan ay galeen markaasay waxay doorteen madaxweyne oo يعني aan maslaxadda wadanka ama danta guud aan rabin ay doorteen marka waxa fiican in carada la xakameeyo oo gaar ahaan dadka waaweyn oo ugaasiyada iyo dubweynada iyo xildhibaanada inay caradoodii xakameeyaan oo ay go'aan gaarin ayagoo careysan ama ay warbaahinta ku hadlin ayagoo careysan maxaa yeelay khudwad ayay u yihiin dadka Soomaaliyeed marka waa inay caradoodii xakameeyaan sidoo kale nabigeena wuxuu yiri marka careysan tahay haddii aad istaagan tahay fariiso haddii aad fadhisana xoogaa yara seexo mar walbana marka careysan tahay cuudu bileyso marka carada aan iska celino Soomaaliyay aan midoono jazaakumullahu khayran waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysateen waa barnaamijkii horumari ummadaada oo idin soo gudbiyay walaalkiin Bazi Xaaji Bussuri waxaa kaloo isku soo dubiraday walaalkiin Axmed Amiin Xasan daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij taxane ah fadlan isdiiwaangeliya follow ku sameeya Facebooka YouTube-ka subscriber ka noqda marka noo soo daceeya Insha'Allah ta'ala inuu Ilaahay tawfiiqdana waafajiyo waxaan ku dadaalaynaa in barnaamijyo tayo leh aan idin soo dirno jazaakumullahu khayran dhageysasho wacan daawasho wacan maca salaama